faragelinaha dalalka shisheeye ay ku hayeen Soomaaliya waxay u muuqdeen kuwa hoos soo dhacayay muddadii madaxweynaadkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya taasoo ilaa xad la cadaadiyay inaysan sii socon dowladii hore ee Soomaaliya waxyaalaha ugu badan ee ku guuleysatay waxa ay ahayd isla markaana ay xitaa dadka nacab iyo kuwa jeclaaba isku raacsanaayeen saameyntii tabanad iyo tiitoganada dalalka shisheeye ee ku lahaayeen Soomaaliya si gaar ahaan xilli adag oo ay la soo jibaaxday arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay khilaafkii arrintii badda ka dhalatay heshiiskii 2009 ee uu saxaxay wasiirkii qorsheynta Soomaaliya xilligaasi xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka soo dhaliyay khilaaf aad u xooggan oo dhexmara Nairobi iyo Muqdisho sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku guuleysatay in saraakiishii ururka Tigreega ee fadhigoodu uu ahaa magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya laga saaro dalka ama si uun looga firdaamiyo iyagoo haraatidii ugu dambeeyay ay ku sii dhuftaan ay ahayd markii ay dafeen isla markaana afduubteen nin sarkaal oo loo jiray qalbi dhagax ka tirsanaa ururka wax iska caabinta ee gobonimo doonka ahaa ee ONLF arrimahaasi markii ay soo baxeen kadib waxaa sii adkaaday in mowqifka Soomaalida ee ku aadan in xataa wadamada shisheeye wax la iska dhaho waxaana la ceyriyay saraakiil dhowr ah oo dalal kala duwan ka kala yimid kuwaas oo ay ku jiraan qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrika iyo kuwa kale hase yeeshee wararka hadda soo baxay waxay sheegayaan inay u muuqato in kanaalo kale oo hor la soo bitaaceen marka hore sidaad ku soo dhawaada barnaamijkan warwareyn aan ku eegi doono qodob xiiso badan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda marakan inuu cagta saaray jid u eeg midan ka duwanay kii Imbagathi oo kale kaasoo ahaa in Soomaalida mar kale magaalada Nairobi looga gacan hadiyo si loo dhaxdhaadiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in safaradiisii ugu dambeeyay ee uu dalalka dibadda uu ku marayay gaar ahaan kii Nairobi ee kamid ahaa kuwii uu halkaas ku tagay in faylka ugu weyn ee halkaas uu geeyay ay ahayd in Axmed Madoobe dowladda dalka Kenya ay ka qabato kadib markii isagu ku qanci kari waayay doodii ka dhacday magaalada Muqdisho shirkii uu ka soo baxay bishii October sida wararkooda ay sheegayaan Axmed Madoobe ayaa marakan waxaas la saaraya culays qabiil iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud dad uu kula kulmay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya oo ka tirsan saraakiisha wadankaasi Kenya oo ka codsaday in Axmed Madoobe la qabto isla markaana lagu soo celiyo madasha lana ogolaysiiyo damaca ku aadan socodsiinta iyo daadihinta waxa ugu yeeray geedi socodka isagu uu rabo ee ku aadaneed in la sameeyo talo ugu yeeray markaas qof iyo cod oo ka dhici doonta deegaano kooban oo ku yaala magaalada Muqdisho inta la hubo sida wararkooda ay sheegayeen tan iyo maalintaasi waxaa soo badanaya culayska aadka u xoogan oo dowladda dalka Kenya ay saarayso inkastoo la sheegay in madaxweynaha waddanka Kenya markii uu reysay uu ka goos qabsaday arrintan isla markaana uu sheegay in aysan fiicnayn in hadeerto arrimaha Soomaaliya faylkeeda uu dhax galo xilli ay Soomaalidu tuhumo hore ka qabtay Kenya sida daraaddeed aysan doonaynin in nabarro hore oo laga heshiiyay ama lagu kala adkaaday ay soo kakiciyaan haddana waxa ay taasi u muuqatay in Xasan Sheekh Maxamuud uu si aad u xoogan oo tacaadun leh uu uga toogay dowladda dalka Kenya inaysan arrinta kaga tagin Axmed Madoobe si uun ka dhaha Ruto ayaa sheegay markii dambe in dad la qaraabo ah oo markaasi ka soo jeeda beesha Axmed Madoobe iyo Jubbaland gaar ahaan dhinaca dhalashada laakiinse Kenyana uu soo diri doono fayl taasina waxay dhalisay in saddex qof loo saaro wadahadallo ayaa kasii soconaya magaalooyinka Nairobi iyo Kismaayo kuwaas oo ay hogaaminayaan ergeygii hore ee urgoboleedka IGAD ninkii loo jiray Maxbuub Macalin iyo ergeygii khaaska ah ee arrimaha Soomaaliya mar ee isla IGAD Maxamed Cabdi Afay iyo sidoo kale senatorka laga soo doorto countiga Wajir senator Cabdiraxmaan Cali Xasan Culuw kuwaas oo Nairobi intay ka tageen gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka Jubbaland halkaana Axmed Madoobe kula sii shawray ka hor inta aysan markaasi talada ka sii qaadan aqalka State House ee dalka Kenya dabadeedna waxa ay ugu dambeyntii ay u tageen Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba wakiilkiisa gaarka Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ninka ku magacaaban kaasoo isaga hadeerto loo dhaxdhaxaadinayo qofka maamul goboleed ahaan ugu dhow marka laga hadlayo iyo sidoo kale maamul goboleedku ka soo jeedo sida wararku sheegayaan intii lagu guda jiray wada hadallada ayaa wararku waxay sheegayaan in ay arrimo yacooda ay dhaceen isla markaana loo arkayay qadtiyaad dood ah oo dhinacyadu ay wada keeneen kuwa sii soconaya Axmed Madoobe ayaa la sheegay intii kulan ka soconay magaalada Kismaayo inuu sheegay in aan laga hadli karin wax ku saabsan Xamse Cabdi Barre wuxuu sheegay Xamse Cabdi Barre inuusan haba yaraatee doodan iyo arrintan iyo masiirkan midna waxa ku lahayn sida daraaddeedna dadka doodu ka dhaxaysa ay tahay Xasan iyo aniga oo uu sheegay in uu dalkii Soomaaliyeed kala dirayo sida daraaddeedna Axmed Madoobe wuxuu mar kale diiday inuusan qaado doonin eed oo ugu yeeray inay keeni doonto boog madow iyo taariikh fool xun oo ugu dambeyn dadkii Soomaaliyeed ee gobolada ugu badan deganaa ka saaraysa ayuu yiri dowladnimada Soomaaliyeed oo soo hadalka u dhigay wuxuu kaloo sheegay in Soomaalida 70% ay maqan tahay dhulkii Soomaaliyeedna ku dhawaad 80% uu maqan yahay sida daraaddeedna isagu uusan matali karin
waa soo hadalka u dhigay dabeedna waxay wararku ay sheegeen in markaasi ay kooxdu markii ugu dambeysay ay ku tirtirsiisay Madoobe in uu wax kala sheego waxaana sheegay in Madoobe uu markii daba yiri waa in la joojiyo dhammaan barnaamijyadan kale giduulka ee Xasan Sheekh Maxamuud tuurta ku sito haddii aad taas oo dhamay kartaa waxaana la aaminsan yahay in arrintaasi aysan ahayn tan lagala hadli karo ama go'aan ka gaari karo Xamse Cabdi Barre marka la eego culeyskeeda haddaba waxa ugu weyn meesha yaalla maaha wada hadalsiinta dhinacyada ee waxa weeye cid wada hadalsiinaysa in Kenya faylka Soomaaliyeed oo dawladnimadii Soomaaliyeed la aaminsan yahay inay si bulaali rabtay isla markaana la doonayay inay dawlad wax la qabsato dunida ay noqoto maanta lagu soo hoos celiyo in la keeno dib u heshiisiin iyo waliba qaab qabiil loo wajaho arinteeda dalalka dariska ee laga irdheynayay lagana ilaalinayay talada wadanka Soomaaliyeed inay madama saameyn iyo lug ku yeeshaan lagu soo hoos celiyo waxay ka tarjumaysaa baa leeyahay khatarta aadka u weyn iyo foolxumooyinka la yaab kale ee marba marka ka dambaysa Kenya ama se dhalinaya ayaa leeyahay in dib u dhac aad xoogan oo dhan walba dawladnimadii Soomaaliya oo Xasan Sheekh Maxamuud labadan sanadood ee barka lagu geystay waxaana la aaminsan yahay in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka ay isku dhex daadatay tanoo ka dhigan in markan kinaaladii horta lagu soo furay qorshihii kinaal xirista ee ololihii ugu weynaa wuxuu ahaa in la joojiyo maamul goboleedyadu in cilaaqaad la yeeshaan dalalka dibadda laakiinse inta Xasan Sheekh Maxamuud uu talada hayay iska daa in cilaaqaad la yeeshay waxaa la arkay in badii iyo dhulkii Soomaaliyeed loo saxeexay oo ay maamullo u saxeexeen markaasi dalalkii shisheeye gaar ahaan kuwii ugu sii cadowsanaa cadowga Soomaali ay leedahay waxaana taasi ay dhalisay siyaasad xumada iyo waliba sida dawladnimada loogu tuntay waayo kinaalka markii horeysay waxaa furay Xasan Sheekh Maxamuud oo dib u baaweeyay isla markaana isagoo isla dad kale ku xumeen bumbuuniyay maamul goboleedyada qaarkood iyo kuwii gooni goosadka doonayay inay dalka ka go'aantooda kale dabeedna uu shirar hoose iyo kuwa markaasi ololeysan oo taxalufaysan intuu la galay ayaguna ay ka adeegteen kolkaana ay ka dhaxtooseen waana waxyaalaha keenaya in dawladnimada qaabka loo wajahaa ay ka duwan tahay qaabka caadifada qabyaalada iyo sidoo kale inaad xukumi karto dawlad iyo inaad xukumi karto qoys ay ku kala duwan yihiin sida muuqata waxa wali sii socda dib u dhacyo waaweyn waxaana la arki karaa baa leeyahay wadamo kale oo iyaguna soo farageliya arrimaha Soomaaliya qaar kamid ah dadka aadka u darsay arrinta Soomaaliya ayaa sheegay in suuragal noqon doonto in doorashada soo socota ee Soomaaliya hadiiba ay dhacdo lagu qabto xitaa dal dibadda ah iyadoo ay taasi keeni karto hab dhaqanka foosha xun ee Xasan Sheekh Maxamuud durba uu u maray inuu dalkii ku soo daayay wadamo shisheeye iyo kuwa dariska ah inay arrimaha Soomaalida dhex batalaqsadaan isla markaana ayagu ay dhex ordaan ayagoo sheegaya inay dhexdhexaadinayaan dawladii dhexe iyo maamul goboleed taasna waa arrin la yaab leh oo ficilsideeda iyo waliba xumaanteeda yeela karaysa khataraha kale ee jira ee arrintan ay leedahay waxa weeye mustaqbalka maxaa xigi doona mustaqbalka waxa xigi doona in Puntland iyaduna ay tiraado weeray dawlad kale ayna dhexdhexaadisa oo ay u yeerataa taasoo jid hadeerto oo furay Xasan Sheekh Maxamuud labaad ee ka sii darana waxa weeye in Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay qofka isagu keenay ra'yiga iyo fikirka in Nairobi ay soo farageliso arrimaha Muqdisho iyo Kismaayo taasoo iyaduna hadhowto uusan meel looga faka karin haddii ay garow tiraahdo imaaraadku hana dhexdhexaadiyo annaga iyo Muqdisho waa waxyaalaha la yaab kale ee dawladnimada iyo nabarrada waaweyn aan dhawaanahan laga soo kaba karin xataa haddii Xasan Sheekh Maxamuud doorashada laga helo oo uu doorasho qabto madaxweynaha cusub ee damana ee Soomaaliya sugi doonta taasoo mar kale in dalkii Soomaaliyeed in dib looga soo samata bixiyo faragelinta shisheeye lagana soo ititibiyo oo laga soo dhirindiriyo ay qaadanayso muddo in gabi ahaanba lagu eego balse waa arrin u baahan gabi ahaanba dib u dhaca dawladnimada Soomaaliya gaaray indho togan oo aad iyo aad u xeel dheer kuwaasoo muujinaya in dhaawacyada waaweyn lugooyada aadka u weyn samcadilka iyo si socod la'aanshaha siyaasadii soolanahayd ee Soomaali leh iyo Soomaalida oo iyadu wixii wada daadahsata meesha ay ka sii baxayso haatan dalka waxa ku guda jira isla markaana caloosheeda fadhiya wadamada kala duwan kuwa kale waa lagu casuumay waxaana u egtahay inaysan fariibo ka qodnayn ee dalka Soomaaliya dhawaan uu la mid noqon karo meelo ka sii liita wadamada hadeerta aynu aragno sida dalalka Yemen iyo waliba dalka Suudaan maadaama ay dawladii loo doortay dalka inay ilaaliso midnimadiisa wadajirka ummadda siyaasadiisa arrimaha dibadda ay ayadu hadeerto ay u kala dhuuleeyeen wadamo cadow kuwaasoo qaarkoodna dana khaas leh kuwa kalena aysan jeclayn dawladnimo Soomaaliyeed oo mar kale mur soo tiraahda una dhiibeen dhexna galiyeen calooshii